السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله هيك دمانتي وايد إسلامي ما أنت ولا شينو نظافة كعدي ويا سانو إمد أيانا أنا مشغل كتر في البين يدبه الله هيك هرت إلى رمضان كاس أنا كنت بابي في البين يد وحي قبتها هرت بالله هيك هرت يا في البين يد وحي قبتها هيك هرت والله وحي قبتان نسيتر وظالمين إلهي عافية أستغفر الله إله أنا كنت بابي قال ذاس ناقص قال ذا أنا كنت بابي يا لكن والله بان كدرت وحي قبتي ماشي بي بسيها الله يسي وحي قبتي ماله سبحان الله وحي قبتي إن بابا هولك هاتي لما أعرف ليش بعد وحنا قبل وإذا ما أنا والله اشتغلت أنا شغلتي وحان هين كده ميس وبنت هذا وحي قبتي ماله سبحان الله إله يقعفي يا ربي إله يقعفي يا ربي يا وحي قبتي إن بابا هولك هاتي ماله كان يمانت وحنا تاجنا هول كانوا تاجنا حين يقول ترماني والبوح حقه والله ماما كل يوم وسويني كل يوم سوينا وحي سمي مالا كذابين هذول ملاعين كذابين استغفر الله توب إليك يا يرف البيني ونظافة يا يرف البيني وحين نظافة الساعة لا حول ولا قوة إلا بالله حنغلط في الصومالي حنك مقلت شري قوضة مقشي وحنا هو قبن بان كمقلت شري والله بيان ما يا قوضة مقشي وحنا هو قبن بان مقلت شري هذا سيدي بقيو السميس سيدي بقيو السميس وح أي قبتهم ماله بهالك لفت بيسار قنين ربا اسكدا وحي قبتهم بهالك أنا وحده رقعي لفت بيس برقنين ربا warkeeda haaba idin geystay inaysan kuwaas khayr lahayn anba waa garanaa yaa xawli walaa quwwata illaa billah haddaan la daba joogin oo la dhihin maxaad samayseen maxaad qabateen waxay qabanayaan male kalaamu leyl bay hayaan yaa kalaamu leyl bay hayaan maxaad qabateen haddaan dabada laga wadin والله أنا بحق عنين فرتارك وأنا شغل قارة كقبتها مركز كبعد يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله يجمع أنت مكينة دان بان ربا أنا إذن شرحه قبلها أنا قونن مكينة دان وسنة كي لبعض أن سوقته سنة كي هري mid baan soo gatay kaliibkii hore aan idin kaga sheekeeyay maalin walba cabaayad dilaacada iyo barkin aan sariir u tolanayo go'aan sariir u tolanayo ayaan lacag ku bixiyaa maalintii dambe waataan idin sheegayo inaan makiinad soo gatayo markaan waxba ka garan waayo inaan iska iibiyo hadda makiinadaanaan soo gatay waxaan garan waayay oo kaliya oo aan garan waayay maalintii hore waan idin sheegayo waa duntaan iyo sida loo gelinayo halkaana laga horgeliyay soo aragtaan halkaas laga horgeliyay halkaana laga soo saaray haddana halkaana laga geliyay haddana halkaana la soo mariyay halkaana saa laga yir halkaana haddana la geliyay haddana bartaana laga geliyay soo ma aragtaan halkaana laga soo saaray halkaana haddana lagu sameeyay halkaana haddana la keenay halkaana haddana la suray halkaas u dambeys oo la suray waa aragtaan waa idin sheegay midaan inaan ka gooyaan damcay tii hore iyadoo jadiidaan damcay inaan ka gooyo ilaa waa baasha dhano day markaan sidaa iraahdo day halkaas kor u kacaysa day markii sidaa aad tiraahday soo ma aragtid halkaas kor u kacaysa soo ma aragtaan marka lagtiisa ka tiraahday markaa rabtay inaad ku celcelisid halkaana saa laga siinayaa dhag halka dhag baa laga siinayaa
sidoo saako ugu noqnoqday marada aysan kaaga dilaacin meeshada u horeysa sida laga siiyay soo ma aragtaan intaas waxaan ku iri waxa igu noqotay mucjiso kale igu noqotay qofku marka wuxuu noqon waa ku dhib marka meeshii waan ka soo kacay lashan meeshoo dhawaa wada muraayadoo mar raba inaan istaago meeshaas baashas madaxa lagu shidaa tan timaha lagu xiiraa soo ma aragtaan tima hadda dadkii gabdhihii wiilalbayba iska wada dhigeen ma aragtaan ciyaalka loogu xiiraa soo ma garataan intaa markaan ka soo wareego ilaa meesha muraayaday lahaydoo ma agdarin inaan ma aragtaa inaan sii joogo kaliibka dhin inaan tuuro baan ka baqayo muraayada aan isku qabto ma garateen walaalahayga marka waxaan rabay maanta inaan idin sheego qofka aadamiga hami buu leeyahay inagu waxaynu ku jirnaa ilaahow rabbigayo sidaas noo yeel laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa la weydiistaa agtar adigu waxaad niyadaada ka rabtid waxaad adigu niyadaada ka rabtid wax mustaxiila oo adan macnaha haddaan iraado ilaahow rabbigayo diyaarada isii haddar waad igu qosli lahayd ilaahow diyaarada rabbigayo lacagaan diyaarad ku iibsada ilaahow isii haddar haddaan iraado waad ila yaab lahayd waxaad dhihi lahayd gabadha ma waalad laakiin ilaahay subxaana qaadir waxba kama mustaxiilahan alle wax ka mustaxiila ma jiraan wax walba alle waa u sahlanta subxaana allah laakiin inaga inala culusto aadana masaakiin oo daciifa rabbiya inaga inala culustaa maahne aadanaha lama alle xaggiisa agtiisa kama cusla marka makiinada markaan hadda idinkaga soo sheekeeyay makiinada dhar baan ku tolay qayaadkii inaan barto ayaan isku dayay agali shay dharkayga anigu aan dharkayga iyo dharka ilmahayga iyo gurigayga iyo aan wax u toltasho maahan inaan rabo in aadana kale wax u tolo laakiin in anigu naftayda wax u tasho oo aan dadka maryahayga iyo waxayga ka asturto ilaahay waxa la yiri qofkii is asturo ilaahayna waa asturaay bal in anagu naftayda isu asturo marka walaalahayga qofka bilow aadanka wax ka mustaxiila ma jirto hooyooyin baan nahay waxaan leenahay waa weynaani irbadaba ma gelin karno ma yeeli karno la ma fi shay mustaxiil wax la ma jiraani wax walba ilaaha qaadirka raxmaanka baa ku yasiraya markaad adigu ma aragtaa ilaahay ku xiran tahayna ilaahay ku dayici maayo ilmaa ka xanuunsanaya ama ilmaa ka tagayo gaal ka qaadanaysa ilaahay u noqdo barya ilaahay ku dayici maayo ilmahaaga ilaahay u bari hooyaa tahay oo thumma baa lagu yiri ilaahay u bari haddaad adigu qof saalaxada tahay ilmahaaga ilaahay u bari ilaahay oo ilmaha iyo hagaaji ilaahu ilmaha iyo hanuun ilaahu iyo xafid ilaahu iyo amaan ilaahu adigu ilaahay ku xirnow ilaahay hadaa ku xirnaat ilaahay ku dayici maayo ilaahay nama dayaco adduunyo aakhiraba ilaahay nama dayaco marka walaalahayga waxaan idin leeyahay shay la ama mustaxiila ma jiraan ilaahay subxaanahu wa tacaala rabadaanka gacnaha loo taago kor qof walba wixii ka dhiman ama wuxuu tabahaya ama iyo wixii ka badanba weydiista ilaahay weydiista ilaahay weydiista ilaaha subxaanahu wa tacaala weydiista ilaahay ku dayici maayo alxamdulilah wa shukru lilah haddaan intaa kasoo gudbo midda hooyada iyo ilmaha iyo haddaan kasoo gudbo anigu waxaan joogaa meel la yiraahdo sacuudi carabiyaan joogaa dadkii soomaalida intii badnayd aan qaadnay waa ka tagtay kuwa Uganda gala oo qaxootiga isu dhiibay ilaahay baan isu dhiibay anigu kuwa Ethiopia taga oo qaxootiga isu dhiiba kuwa Kenya taga oo qaxootiga isu dhiiba laakiin anigu ilaahay baan isu dhiibay halkan aan jooga waxa li meeshan waa dhib badan tahay iqaamad baa keera anigu iqaamad ka fakarimayee waxaan ka fakarayaa ilma aan dhalayo horta meel kastoo la joogo waxaan idin ogay meel kastoo la joogo wixii ilaahay nama dayacmaya waa iska dayacan yihiin sababtoo ta maalintii xabiya biyo ahaayeen baa loo qoray adiguna kama celin karta ama ma ka joogo ama Madiina joogo ama Ameerika salkeeda joogo wixii alla ku qoraa waad la kulmaysaa laakiin mar walba ilaahay baan baryeynaa ilaaha qaadirka baan gacnahayaga sidaa kor ugu taaganaynaa ilaahu nacaymi daasan ku jiraynaa insha Allah marka walaalahayga waxaan idin sheegayaa adduunkaanu asagaaba iska yar adduunkan wali wax adduunyo qaatay oo xambaarsado qabri la galay lama arag
haddii xoolo lagu seeyo waad itixaamantahay oo ilba xoolaha kan iyo meesha ka yimaadeen baa lagugu itixaamaya haddii aad cudur ku hayo waad itixaamantahay oo hadda cudur baaba ku haya haddii aad gaajaysantahay waa itixaamantahay oo ilaahay juuc iyo gaajo kugu itixaamo marka adduunkan isagaa iska itixaana meel lagu nasto oo lagu nabad galo oo geeri laga baqayn oo geedi laga baqayn oo dhimasho laga baqayn oo jiro laga baqayn maaha waa meel iska daciifa oo waqti galiila aynu joogayno ilaahay marka subxaan qaadira kuwii iyagoo khayr qaba oo wanaagsan oo ilaahay raalli ka yahay ka tagay allahayna ka dhigo ilaahay annagoo raalli naga yahay inagoo ilaahay kuwii ka taga allahayna ka dhigo ubadkeena allah inoo xafido meel ay joogaanba ilaahay noo xafido waalidkeen iyo waalidiinteen intii dhimatay allah u naxariiso intii noolna allah xafido caafiyo nabadgeliyo jannadii bishaa allah ugu bishaareeyo marka walaalahay waxaan idin sheegay hadda mar dhow baa taraawiixdii tukanay alxamdulilah wa shukri lillah anigu sacuud carabiyaan jooga alxamdulilah ilaahay waa igu kaalmeeyey ilaahay waa igu nabad yeelay ilaahay waa igu xafiday ilaahay waa igu caafiyey waa inaan la heli karinba ilaahay alxamdulilah wa shukri lillah ilaahay baana ku mahadsan ilaahay baa ku mahadsan gacantiisu weyn tahay awoodiisu badan tahay wax walba oo aad rabtidna allaad weydiisan bal yaa heli kara wax walba aad doonaysidood ilaahay weydiisan kartid ilaahay gacantiisu waa ka weyn tahay adduunya oo dhan marka waxaa idin leeyahay rabadaankaas aynu isu soo ducayno qofkii rabadaankaa laga aqbali waayo waa qof aan ilaahay janno u qorinin baa la yiraahdaa ilaahay aynu barino soonka aynu adkayno aynu salaada tukano ilaahay ka baqno subxaana qaadira xanta iyo dembiga iyo maaragta hebel wuxuu yiri hebel waxay tiri aan iska dayno bahalkan laynoo soo arkay oo tiktokaana waa shaydaan layna kusoo darsaday shaydaan meel kale ma jiro aan tiktok ahayn tiktok haddaad gashay shaydaan baad u gashay afkiisaad ku jirtaa xaawil inaada shaydaan afkiisa gelinin kaa xoole laga raadsada iska daayay iyo wax laga samaysto asagaaba shaydaan adoo afkiisa ku jira sababtay tahay intaa waa la ismaagin intaa waa la iscaayin intaa waa la isu kala tirin wax daran baa soo gelin waxbaa ka dhicin marka waxaa weeye ilaahay sharkiisa hayna ka xijaabo wax badan oo khayrana waa leeyahay haddaad maaragta social mediaha kan wax badan oo khayrana waa leeyahay wax badan oo sharana waa leeyahay laakiin ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwii khayrkoosa la kulma allahayna ka dhiga sharkiisana allahayna ka xijaabiya annaga iyo ubadkeena iyo ehelkeena iyo intaan ka naxno iyo intii muslimiinaba marka walaalahayga dhammaantiin waxaan idin leeyahay aynu isu soo ducayno adduunkan wuxuu yahay baaba iska yar adduunkan wuxuu yahaaba iska yar aynu isu soo ducayno insha allah sacuudi carabiya maalin dhaweyd aniga makaan jooga haddeer 2 bilood oo gowgow makaan jooga waxaad arkaysaa dadkiioo iska batay oo saa u yaaxay waxaa keliyaho iila yaabadnaa wiil yar oo dhalinyaro ah ayaa wuxuu ku yimid cimri ku yimid markii ilaahay ku risaqayo horta yaa tahay kuma yiraahdo markii alla ku risaqayana iqaamad ma haysatid lagu dhihi maayo haddii oo alla rabo inuu ku risaqo alla baridid wallaahi inaadan iqaamad ma haysataa walaa ma haystaa midna inaan lagu dhahayn wixii ilaahay kula maago waad helaysaa waxaa laga yaabaa kuwa iqaamada haystaa ku baqtiyey meeshaan kuwa iqaamada haysta baa ku baqtiyey waxaan soo arkay wiil yara oo dhalinyaro ah oo nin weyn aan ahayn oo wuxuu ku yimid cimru ku yimaadaa sanad walbaba xalii cimradaas ku yimaadaa maasha allah tabaarakallah maasha allah tabaarakallah wiilkaas yarkaa waa la yaabay macnaha waxaan la yaabay bay noqotay wiilkaas maalintii wuxuu u soo cimreeyaa mindhaa 20 qof 10 ilaa astaghfirullah tooba ilayk maalintii aniga iigu horeysaan arkay ugu yaraan 7 qof buu soo cimreeyo mid walba 1000 riyaal ka qaatay 700 800 1000 riyaal inta u dhaxayso ka qaadanay waa wiil yar oo wadaada orod buu isqaadan qof baa u soo diray lacag iigu cimrey hooyaday lacagtii buu ka qaadan baf wuu soo cimreyn hadan maalintii midha 4 goor 5 goor 6 goor 7 goor buu wuxuu aadaa meesha laga soo xiraamto intaa wuxuu wadaa dad banaanka ka yimid buu wuxuu u wadaa inuu soo tustuso meelaha inuu cimrada geeyo inuu cimrada muxuu hayto meelihii maaragtaa la mari jiray masaajidyadii oo nabiga ku tukan jiray calayhi salaatu wasalaam meeshii quraanka ku soo degay qayrax qaara xira kulli inuu soo mariyo wuxuuba leeyahay wiilkii ayaan adigu waxaa lagu leeyahay wuxuu joogaa hadda 2 bilood wuxuuba ku leeyahay waxaa rabaa inaan kusoo gala iqaamad business waxaa laga yaabaa kuwa wadanka joogaa inay ku baqtiyeen oo ay dhahaan oo maxaanu qabanaa iqaamad baana furatay bal hadda adigu day haddii ilaahay ku risaqay yaa ta kuma yiraahdo
habar baan waxaan arkay Soomaali bal meel ay qabiil ka gaartay habar baan waxaan arkay bahal yar oo muxuu ahay tolis gacanta lagu sameeyo meel taagan intay saa ugu foorarsato ayay qabiilkee baa tahay waa kartoon yaa meel taagan marka ilaahay idinku dhaariyo ilaahay hadduu ku risqayo inuu cidna ku weydiinay horta ma aragtaan haddii aad risq xalaal raadisid inaad helaysid meeshaan aan aniga hadda joogo waxaad ka raadisid oo risq xalaalan dayiban haddaad adigu balaayo dhex gashid oo balaayo bacaleen iibsid oo adigu biyo qaadid oo balaayo xambaarsatid dhib walba waa diyaar baad u tahay xaduudaasaa laga soo baxaya alaab baa lasoo xambaarsanaya kii watay oo asagu iska lahaa malaayiinta xoolaha soo geliyaa ka baqaya leesh baad adigu soo xambaarsanaysaa waxaa lagu leeyahay 45 wiil baa la tooganaya oo haddaad masaa'ib muslim u soo geliso waa lagu qabsanayaa dadkii kii lahaa oo lacagtiis ka soo bixiyay ayaa ka cararay oo adiga kugu miineeyay leesh baad uga yeelaysaa ma qabal baa tahay gaajada kuu geysay gaajo kuma geyna Soomaaliya xoolahiina baad raacanaysa arigiina baad raacay Itoobiya aad ka timid baydhabaad ka timid baalkaad ka timid gabarowaad ka timid baribaad ka timid hargeysaad ka timid xoolihiina baad la joogtay maxaa ku waalay oo miira kugu soo raray masiibo qofkii lahaa ka cararay maxaa kugu soo raray ilaahay baan ka magan galaynaa marka waxaan leeyahay walaalahayga ilaahay subxaanahu qofku sidoo alla u baryo unbuu wuxuu siiyaa alle sidoo alla qofku u baryo ayuu wuxuu siiyaa alla wuxuu siiyaa waxaad ogaataan marka risq xalaalan dayiban haddaad raadisaan meeshaan waa meeshii ilaahay kitaabkiisa ku sheegay wadankan haddaad si wanaagsan oo ilaahay raalli ka yaad wax ku raadsi waad helaysaa saasaa maantoo dhan loo shaqaysanaya weraraf waanba u soo bogayba marka risq xalaal ah dad waxaa jooga intaasoo sano aan ku aqaano aan qaamad lahayn oo noloshay ku nool yihiin wallaahi baan ku dhaartay qola ku nool inaysan jirinin halkaas ilmahooda u degan yihiin guri bay 3 qol ay degan yihiin qol markii xajku soo dhawiyo 2 qol bay waxay ku kiraysanayaan qolkiiba $1 ku kiraysanayaan qolka kalena ilmihiisu ku aruursanaya 2 qol oo kalena wuu kireynaya dad buu ka kireynaya lacag buu ku dhufanaya asaguna waa soo xajinaya ama qof buu soo xajinaya 6,000 buu qaadanaya qof kalena 6,000 waa lacagtayadan macnaha $2,000 buu qaadan naagtiina iyaduna waa la soo xajaysa $2,000 caqabadba ma haystaan halkaas istaartaan ay laba maxaa talaajadoo jiif duqduqoobayna waa la dhiganayaa hilibka xajka waxa xajka kale lagu gaarayaa la gashanaya nicmadaas lagu jiraa marka waxa weeye wadankan hadaad wax wanaagsan ka raadisna wax wanaagsan baad keenaysaa hadaad wax xun gacnahaaga la gashina wax xun baad faraha la galaysaa wadankan asaga iska soo tufa kii daalimaba uu soo tufa marka walaalayaal ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay kuwii uu soo tufo oo daalimiina oo ilaahay dariiqiisa aan ku socon ilaahay inuu muxuu ahaa naga qabtaa oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala naga xijaaba kuwii dariiqa alla ku socdo ilaahay ka baqa wadankaana ilaahay uga baqa naftoodana ilaahay uga baqa ilaahay naga dhigo dambigeena iyo dambi waaridkeena Allah dhaafo rabadaankaas dhamaantiin waxaan idin leeyahay walaashiin oo idin jecel oo mar walba wanaaga idin la jecel oo wax wanaagsan idin la jecel weeye ilaahay dambigeena iyo dambi waaridkeena baa dhaafo dhamaantiin waa idin salaamaya Allah idin salaameeyo intii soo falow garaysay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ajarkeeda ha ka siiyo intii kalena waa sugaaya insha Allah bismillaah waraahdiinana waan dhageystaa waanan akhristaa markaad ii soo jawaabtaan hoos igala soo hadashaan dad badan baa waxay yiraahdeen noo sheeg Sacuudi Carabiya saan ku soo galno Sacuudi Carabiya hadda waa sahlanaatay sida lagu soo galo sahal jiddan baa lagu soo galaa fiisada xareysanaysa online kaad ka xareysanaysa fiisada markaad halakan timaadid Sacuudi Carabiya lagu dhufanaya airportka lagaaga dhufanaya aad ka soo galaysaa marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala qofkii rabo inuu soo galana ilaahay ha u fududeeyo dambigeena iyo dambi waaridkeena Allah dhaafo dambigeena iyo dambi waaridkeena Allah dhaafo ilaahay noo naxariistiisa isagay weynta oo badan tahay ilaahay noo naxariisto waalidkeena iyo waalidiinteena Allah u naxariisto dhamaantiin waa salaam iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh